waayahay videoga hore wuxuu inoo marayay halkan labada qaab inaynu gelin karno sidoo kale haddii ay jirto wax academic honor ama shahaado sharaf academic honor aad gaartay misalan kalinkood baa gashay tusaalahaan kale inaad sheegto haddii aad gashanay class ranking at graduation class kan waxaa weeye haddii aad gashay classka hadda kaalin u gashay waxaad dhahaysaa I went misalan kale I was the first person hadhoodii document within in my class ama in my school ka dawgash soo kale hada wuxuu ku dhahay academic honor shahaado sharaf aad la heshay ama academic honor aad gaartay miyay jiraan ama wax sharafeed lagu siiyey misalan kale waxaa ka mid ah qofkaana in la siiyo kale tusaalahaan kale ardayga ugu wanaagsan ugu asluub wanaagsan ugu dhaqan waxyaabo la mid noocaas kale aad yaad hadhoodii waxay ku weydiin doonaan document ay ku weydiin markaas kadib waxaan leenahay save markaas save dhacno next ayaan leenahay save ayaan leenahay submit marayno save ayaan mar walbana waa la mid meel walba markaan marayno profileka markaan marayno oo aan dhammayno maxaan leenahay save ayaan leenahay next ayaan leenahay waxaan daada save garan kuma save garasmeen ama kuma mid walba waa la mid haddaba waxaan imaanaynaa education waa kii hadda markii save dhacno next dhacno haddana waxaan imaanaynaa kan ku xiga oo ah isaga si toos ku geenaya oo ah scoreska qofka kan uu keenay tan wuxuu ku weydiinayaa shahaado luqada ingiriishka qofka aad u hayso oo score uu ka keenay ama shahaado heer caalamiya qofka doosal ku gaadhay hadaysan sifarna ka soo umbareena wax qasaba qaybta tan ma qaybta waxa weynana references reference maxaa laga jeedaa reference waxa weeye qof tilmaamaya qofka kan hebel ah in aniga ayaan aqaana waa qof wanaagsan akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan qofka noocaas waxay rabaan in ogaadaan qof tilmaam ka bixin kara macnihiisu noqon kara wuxuu doon noqon kara hadaba halkan waxaa gelinaysaa qofka aad isdhayso wuxuu ka bixin doonaa reference ayuu ka bixin doonaa ugu horeyna qofka u soo sheegaysaa already qofku waad u soo sheegay qofkana waad u soo sheegaysaa okay magaciisa ku qoraysaa emailkiisana waa qoraysaa emailkiisa marka qorto waxaad dhahaysaa ask for a reference qofka kan waa qof reference-ga weydiin kara marka iyaga hadhow qofka way la hadlayaan waxay leeyihiin qofka kan ee kusoo ku dhacay reference waa noqonaya idan ma garanaysaa ayay leeyihiin okay save ayaa leedahay and next mar walbo save and next ayaan samaynaynaa mar walba waxaan imaanay qaybta motivationka wuxuu dhahayaa waa motivation letterka waxaa weeye waraaqad caddaynaysa 1500 eray 1500 oo maaha word maaha xaraf ayaa lagu xisaabinaya 1500 eray ilaa 4000 eray bas ayaa laga doonayaa adigu ku caddaynaya goolka aad ka leedahay inaad daraasayso koorsada inaad daraasayso goolka aad ka leedahay wuu ku xisaabanaya hatta inta mar soo arkaysaa goolka ka leedahay koorsada inaad daraasaysid waxaa isweydiinaysaa inaad tahay qofka ku soo bixi lahaa mustaqbalkaaga maxay ku horseedaysaa hadallada noocaana adigu diyaarsanaya ayaa meeshan samaynaysaa haddaad doonaysa inaan kaa caawino qaybta motivation letterka oo soo codsan karta motivation letter iyo qaradoonaya oo ku aadan kulliyadda noocaas oo ku qorana haddaba kulliyadda tan ama takhasuska kan motivation letterkiisa qoratay then takhasuska kan isna waa lamid takhasuska labaad isna waxa qoraysaa maxay motivation letterka ku gaarka qoraysaa takhasuskan saddexaadna waa lamid isagana waxa qoraysaa motivation letterka ama sababta aad ku dooratay iyo waxaad isdhayso waad ka soo bixi kartaa su'aalaha isweydiin kartaa waxaa ka mid ah maxaa ku doortay programka kan maxaa rajaynaya inaan noqdo academic background-iga muxuu iga caawinayaa maxaa jeclaan lahaa inaan jaamacadda tan laftigeeda maxaad ku dooratay waxyaabahaas ayaa ka hadlaysaa then markaa ka hadasho save and next ayaa leedahay next ayaa leedahay marwalba save and next checklistiga ayaa imaanaysa marka checklistiga kan waxaa khasab lagaaga doonayaa transcriptigii inaad xareyso si qasaba ayaana looga doonaya checklistiga kan motivation khalad baa ka jiro leeyahay isaan ujeedina save in la dhahnay wuxuu dhahay transcriptigii ayaa halkaas soo gelinaysa waa khasab lagaa doonaya soo kale qaybahan kan waa samayn kartaa khasama laakiin proof of language of inaad luqada ingiriishka taqaano haddii aad garanayso luqada ingiriishka iyadana waxay gelinaysaa maxay halkan ay gelinaysaa haddii tusaalahaan kale haddii aad imtixaan test aad gelin halkan aad dooranaysaa haddii aad shahaado lamid aadan haysan waa iska dayanaysaa sooma
halkan ayaa iska weydiinaysaa I have registered for haddii aad iska register garaysay laakiin imtixaanka aadan gelin halkan aad gelinaysaa sidoo kale waxaa dhihi kartaa اللهم استعان I've attached sufficient proof of my English level waxaan haysaa caddeyn waxaan haystaa in aan luqadii Englishka garanayo sidoo kale documentiga aad haysato waa soo upload garanaysaa oo halkan ku dhufanaysaa waxa la wixii shahaadaad haysato luqadii Englishka aad taqaano tilmaamaysaa ama daraasadaada jaamacadeed English ku baxday iyadana waad lamid waad soo qaadanaysaa ama waad soo gelinaysaa marka aad samayso waxaan aad samayso oo waa saf garanaysaa okay marka geliso ku soo qabanaya sidoo kale reference-ga kan waxaan nidi qofka wuxuu weydiinaa wakiilkiisa ayuu weydiin karaa inuu laakiin waxaan nidi reference-ga kan qofka wakiilkiisa ayuu weydiin karaa ama wuxuu dhihi karaa waraaqada tan wakiilkiisa ama reference-ga kan ayuu ka soo qaadan karaa isaga caadi u gelin karaa midna wuxuu dhihi karaa hadduu qofka bilishis dooro baa lagu qeybaha mid kamid ah I've not yet asked for my reference wax ma weydiin weli I asked for my reference waa weydiiyey I received my reference waan helay reference-ga aan weydiiyey waan helay ayaa dhihi kartaa documentigii ayuu qofka kan ama caddeyntiisa ayuu halka kan soo qaadanaya okay halka kore ayaan ku soo laaban doonaa insha Allah taala waan helay hadduu dhaw documentiga okay dib waxaan ugu soo laabanaa I have received sax baa noo saaran sida ujeedo reference-ga waan helay haddaadan helin dan mail ayaa leedahay okay transcriptiga iyo shahaadooyinkaagii ayaa halkan gelinaysaa sidoo kale waa halkan uploaded haddii aad soo upload garayso hore meesha transcript kore haddaadan upload garayna waa halkan ayaa ku qoranaysaa waa upload garay hadda waxaan leenahay waa upload garay laakiin halka wuxuu dhahayaa documentigaagii ma soo upload garayn ayuu leeyahay ama maadan gelinin ayuu leeyahay oo halka kan meesha education-ka ahayd ayaa laga rabay inaynu soo gelino halka kan waaya test score haddii aad keentay imtixaanada tan oo qaybta imtixaanada ah haddii aad gashay waad gelinaysaa haddaadan gelin dan waa ka tegaysaa tigtig ayaa ku wada saarmi doontaa dan waxay imaanaysaa meeshan documentiga kan ayaa imaanaysaa halkan markaa documentiga aad timaado waxaynu sameynaynaa waxaynu weydiinayaa no document have been uploaded wax documenti aad xaraysay ma jiro ayuu leeyahay halka kan waayahay documentiyada aan soo xaraynay ayaa halkan ka wada arkaynaa bay noqonaysaa hadhowda waay otherskan imaanayna oo qaybta ugu dambeysaa haddii ay jirto how did you hear about sidee baa naga maqashay halkee baa naga maqashay waxaan dhahnaa social media ayaan idinka maqlay okay through social media ayaan idinka maqlay okay xaggaan u dhiganaa haddii meel kale ka maqshay jirtana waa sameynanaa okay scholarship-ka kan saddexdan mid ka mid ah hadda wuxuu dhahay Turkish citizen only ayaa kan apply garayn kara kan waxaa apply garayn kara Chinese citizen ka Colombian citizen other national data oo intaan ahayn halkan ayaad ku dhufanaysaa I've not received or applied for one of the list scholarship haddii aadan midka kan aadan waxba iska diiwaan gelinin intaan kore mid ka mid ah waxaad dooranaysaa halka kan hoose ayaa dooranaysaa oo waxba weligii iskamaana diiwaan gelin ayaa leedahay okay please indicate if you applied or have been awarded haddii aad apply garaysay ama lagugu abaalmariyey master maadaama hadda master ay tahay waad caddaynaysaa waxaanina scholarship-ka noocaad haddii hore scholarship aad u heshay scholarship-ka aad heshay noocu uu ahaa ayaan u sheegaynaa inuu fuul ahaa inuu saas wuxuu ahaa baynu sheegaynaa okay qasabna ma aha xiddi kuma qorna sidoo kale halkan maa qasab waxaana la weydiinayaa area of interest maxaa danaynaysaa area of interest-kaaga muxuu yahay ayaana la waaya xagga waxaanu weydiinayaa area of interest intaan hoose maadaama aan dooranay waxaanu danaynaynaa master in biomedical qeybahan hoose maxaa sii danaynaysaa haddaba waxaa sii danaynayso ama qaybtii xiriirka la leh waxaad danaynayso si degan ayaa u fiirinaysaa then wixii aad danaynayso aad isdhehayso waxaa weeye wuu kusoo jiidanayaan unba ka dooranaynaa qeybahan soo socda waaya waxaanu danaynaynaa aan dhahno biomedically biologically waxyaabahaas danayna okay xagga markay doorana waxaan leenahay save marka ugu dambeysa waxaan leenahay submit markaan dhahno ma hubtaa buuna leeyahay yes wayna hubnaa okay xagga wuxuuna leeyahay error ayaa dhacay maadaama ay naga maqan yihiin documentigii qayba ka mid ah laakiin documentigeenii haddaynu dhammaystirno dan micnaheedu waxaa weeye waxaynu awood u yeelanaynaa dhammaan waxyaabaan laga doonay inaan wada dhammaystirno hadda taskiga haddaynu ku dhufano nine taskis qaybahan in la buubuuxiyo ay doonayaan kala jeedaa oo halka kan waxaan laga rabaa kow waxa loo yaqaano transcriptigeeni baa laga rabaa sidoo kale waxaan laga rabaa statement purpose oo ah
بس sababta aad ku dooranayso ama motivation letter ama bayaan shakhsi ama statement of person qofka kan ujeedkiisa inuu ka hadlo okay test score kan wixii uu keenay dad wati aan ka hadlayna hadaan gelinta qasab maaha soo gal english ka dadana qasab maaha referencigi oo ah qofkii ku daminanaya ama qofkii ku dhahay qofka kan waan garanayaa ayuu halkan gelinayna waayo markuu dhamaantood wada sameeyno then waxayna awood u leenahay inaynu submit garano haddaynu submit garano waynu dhamaystirmi doonaa waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala dhammaantiin inaynu ka wada faa'iidaysan doono noqon doonana dadkii ku soo bixi lahaa programka kan waxaan rajeynayaa inaad noqon doontaan kuwa ku soo baxay insha allah haddii aad rabto inaad ku laabato oo cabaarkida waa ku laabato then you can edit haddii aadan ogoleen ama aad ku qanacsanen programkana edit baa ku samayn kartaa mid walba waxaa weeye waad la tacaamuli kartaa hadduu aalidma waxaan rajeynaynaa fahanteen kana faa'iidaysan doontaan insha allahu tacaala wixii su'aalo aadan fahminayna waxaa weeye wayna isoo weydiin kartaan hadduu aalidma